maanta dunida waxaad ku arki kartaa qof nolosha guul ka gaaray iyo qof nolosha la dhibaatoonayo. Taasna waxay ku tusinaysaa ama ay ku cadeynaysaa qofkii la yimaado hawl adeeg, kalsooni, dulqaad iyo juhdi badan inuu helayo natiijadiisa. Taasi oo ah inuu noloshan guul ka gaaro. Ogow adiga waxaad tahay qofka ugu fiican ee dunidan joogo, maxaa yeelay waxaad leedahay awoodo gaar ku ah oo adiga ku qaas ah, cidna aysan awoodahaasi soo bandhigi karin ama soo muujin karin. Maanta ayaad horumar gaari kartaa, maanta ayaad dunidan wax badan ka bedeli kartaa. Ogow waxaad haysataa hadiyada ugu fiican ee dunida, taasi oo ah inaad nooshahay, inaad dunidan saaran tahay. Dunida intaad saaran tahayna wax walba waad xaqiijin kartaa, wax walba waad samayn kartaa. Mana jiraan wax aan macquul ahayn, wax walba waa suurtagal, waa macquul, waadna samayn kartaa. Kaliya isku kalsoonow, la imow samir iyo dulqaad badan. Hana iloobin inaad ku sii darto dadaal iyo hawl adeeg badan. waad gaari kartaa, 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 waad gaari kartaa.